qaybtii hore ayaa waxay inoo maraysay meeshii ay talo jacayl ku qancin ka sugaysay saaxiibteed ku kalsooneed hadallo aan u qalmin ee jawaab ugu dhigtay. Markaas intay ku xanaaqday fadhigii kaga soo kacday oo xiriirkii saaxiibtinimo isla daqiiqadii ka goosatay, sidaasna ku kala haajireen saaxiibteed Nasra Sheekh Yuunus. Ladan waxay istustay iyadoo aan cidna la tashan inay liibaan jacaylkiisa ku mintido. Haddaba waxay kala kulantana waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtan. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee Dhoofid Hal Caashaq, waxayna ku bilaaban. Ladan waxay bilowday in marka xilliga break time-ka laga soo baxo inay liibaan ka dalbato casharo la qaatay oo dib ugu naqtiimo markaas, taasoo ka ogolaaday ay haddana sidoo kale ka dalbatay in shaaha iyo quraacda u doontaan baarka iskuulka ku yaalo ee ardayda wax ka cunaan, iyadoo ka bixin jirtay qarashka. Baarkaas liibaan uusan weligiis tan iyo sidii iskuulka ugu soo biiray uusan ag istaagin shiidnimo awgeed, balse Ladan ayaa ka codsatay dhowr jeer ay gudbisay kadibna uu ka yeelay. Sidoo kale Ladan waxay liibaan ka codsatay in gaariga lagu soo doono xilliga kuleylka liibaan hore u sii kaxayso, laakiin taas wuu ka diiday oo wuxuu sheegay inuu jecel yahay lugtiisa uu maalo si uusan kibirka iyo isla weynan u baran, oo isaga diidana in gabadh ka darajo sareysa uu baabuurka la raaco. Liibaan oo ah arday cuqdad ka qabay dhalinyarada isku iskuulka yihiin uusan hadal la qaybsan weligiis ayaa wuxuu iska ilaalinayay mar walba inuu Ladan qorshe ay wadato u soo dabco, waayo shaki ayuu ka qabay xiriir la wadaag wiil isku een yihiin oo jacayl la wadaagay gabar reer Ladan ka dhalatay, reerkuna dhinaca dowladda isku lug ku lahaayeen. Jacaylka wiilka baa si hoog ka raacday, isagana sidaas oo ayuu cabsi ugu qabay in laga raaco jacayl la wadaagay Ladan. Liibaan waxa u caddaatay in Ladan ay danaynayso isagoo ay jeceshahay, inkastoo weligiis uusan marin jacayl, haddana aqoon dhinaca maqalka ayuu ka haystay oo dhalinyaro badan rag iyo dumar oo jacaylka shirka ku noqday ayuu soo arkay, halka kuwo kalena ku khasaareen, kuwana guul ka gaareen oo nolol mustaqbal leh la wadaageen, kuwana ku hanteen. Laakiin isaga uma soo jeedin jacayl, kumana soo degdegin xaaladda nolol uu ku sugnaa awgeed, waayo wuxuu ahaa nin ka aradan macaanida adduunyada oo xitaa dacaska u wato fiilo feer ayuu qaybta hoose ka gooday. Shaatiga shaarka iskuulka ku dhiganayna bafta cadaad dhammaad xigeen ah, surwaal kaaken aan kudheeda ayuu ka soo iibsaday, wuxuu iskaga bedelay ma haysan, isaga ayuu iskuul ku dhiganay, magaalo joogna uu ahaa. Shaarka baftada cadaad waxay wehelinaysaa funaanad dhug xigeen ah oo mar walba uu xiran jiray isagoo aan haysan wax uu iskaga bedelo. Liibaan galinka hore iskuulka ayuu dhigan jiray, galinka dambena adeerkiisa ayuu saaci jiray oo qabdi qadasta ka kaalmayn jiray, halkaas ayuu dhadhaciisa ka heli jiray isagoo marka buug ka buuxsamo ama qalin ka dhammaana ka gadan jiray. Nolosha ciriiriga ayuu ku sugnaa oo xitaa qarash uu dacas ku gato muusan helin jirin. Liibaan isagoo xaaladda ku sugnaa ayay Ladan jacayl ula timid, buuggiisa xisaabtana maalin ka qaaday, warqad bashqaysan u soo dhexgelisay, una soo raacisay sida caadada u ahayd kuwas lacag ah. Markii iskuulka laga baxay Ladan waxay guddoonsiisay liibaan buuggii uusan ku ogeyn wax warqad ah, laakiin markuu gurigiisa yimid uu buuggii miiska saaray ayaa warqaddii ka soo dhacday. Markii intuu dafay ayuu galka hore bashqad ereyd ku qornay ka akhriyay magaciisa iyo magaca soo diray, kadibna wuxuu daliiqay si uu u ogaado nuxurka ku dhex jiro, wuxuuna ka akhriyay erayadan ku socota liibaan aadan aboowe. Marka hore iga guddoon salaamaha la isku daro midda ugu qaalisan dhaqan neeflaha oo idil, inta raggu dunida saaran ayaa kaa sahansado kaa soxosho, inkastoo xaaladaadu tahay si kastoo xaaladaadu tahay iyo si kasta aad ku sugan tahay ayaan kugu doorto kugu raba saafiyow. Saacadahan la joogo sax wow inaan ku jeclahay saan ii qaabilo shaki ka siko idinkiis, anna saafi daacad ahoo adig ku sugaysaan ahay. Taa la soco aboowe, jawaab saafi ahna waan kaa sugayaa, sixna u sheegiyo kuwaas lici jacaylka si faxun ku sheega, ka sigow ka fogow qalbigeen kaa sirin jacaylkeena silcinin. Ka socota walaasha Ladan oo jaamac. Markii uu liibaan akhrinta qoraalka ee warqadda Ladan soo dirtay dhameeyay ayuu fikir ku fogaaday, wuxuuna sameeyay uu garan waayay. Intuu sacbada gacantiisa dabaniisa cusjiyay ayuu isla hadlay oo yidhi maxay ka rabtaa gabadhan oo mid kaloo jacaylka la jila ayay waysay, ani ma jecel iyo afaarii u soo jeedaa, waxbarasho ayaan ku mashquulsanahay, sidaan ahay miyayn u jeedin, maxay indhaha isku tiraysaa gabadhan inaan isku darajo ahayn soo ma aragto, shaarka baftada cadaadta ugu dheeda aan qabo uma jeedo miya,
surwaalka salka hoose salka dambe ka karakaysan aan iskuulka dhigto marka indha saaban tahay inaad dacaska iibsan waayo moog miyay u qabtaa gabadhan waxeeda jecel ma ahee bal shirqool ayay la damacsan tahay walle wax laga sheekay way tahay waayo salfudeedka igu soo gashay ayaanba ka shakiyay laakiin dhib ma lahan arrintan waan ka salgaarayaa liibaan markuu intaa iskula hadlay warqaduu gacanta ku hayay ayuu miiska dul saaray kadibna wuxuu gudagalay fikir muka doorin doonaa maku jawaabu ka bixin doonaa waxaasoo dhan waxaa kala socon doontaan qaybteena saddexaad ee sheekada dhoof iyo dhacal caashiq fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe